garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa maanta soo gaaray diyaarad 13 ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo ku xirnaa dalka Liibiya halkaasi oo ay gacanta ugu jireen magafayaasha dalkaasi mas'uuliyiin ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku jireen wasiiro xildhibaano ayaa dhalinyaradan ku soo dhaweeyay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho dhalinyaradan soo celintooda waxaa fududeysay dowladda Soomaaliya iyo hay'adda socdaalka adduunka ee IOM taas oo dhalinyarada ka soo qaaday Liibiya waxaana warbaahinta la hadlay wasiir ka tirsan xukuumadda kuwaasi oo sheegay in dhalinyaradan dhibaatooyin kala duwan ay kula soo kulmeen dalka Liibiya qayb ka tahay balaqaadkii dawladda nabad iyo nolol in xabisyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysan laga soo qaado arintaa waxaa galabka gacan weyn ka geystay UNHCR IMO oo qayb ka qaatay soo xareyn keenidooda waddanka dib loogu soo celiyo dadaalkeeda badna waxa iskala dawladda uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasaarihiisa xasan cali khayre polisiga dawladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kastoo nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tawaalaysan tahay in la keeno waxaan rabaa halkaan inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo anoo ku hadlahay magaca madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha qaranka iyo dhammaan xukuumadda teamkii ka soo shaqeeyay oo fududeeyay ee ugu horeeyaan hay'adaha caalamiga ah IOM UNHCR iyo dhammaan safiiradeena dibadda jooga waxaan rabaa si gaar ah inaan uga celiyo xafiiskeena qaxootiga qaranka gudoomiye Axmed iyo Maryam oo ergeyga gaarka ah oo runtii si gaar ah uga shaqeeyay arintan runaantii ummadda Soomaaliyeed waxay marqaati ka yihiin sanad kadib ballanqaadkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ahaa qof Soomaaliyeed inuusan ku dhibtoonin dibadda in ay marqaati ka yihiin waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan waxa ka fiican hawl yar tan waxay qayb ka tahay hawlaha aad arkaysaan oo lagu soo celinayo karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed annaga waxaa naga go'an annagoo ka mar walba ka oo marqaadanayna madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego ballanqaadkii madaxweynaha oo ahaa koow inuu soo celinayo karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed laba inuu ammaanada ummadda Soomaaliyeed u ilaalinayo saddex inuu amniga iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed uu soo celinayo waxaan rabaa halkaan fariin uga diro anoo ku hadlayo mar labaad magaca ummadda Soomaaliyeed karaamadeeda iyo sharafteeda iyo midnimadeeda waa lama taabtaan qofkii aaminsan Soomaaliya maanta inay marxalad adag ku jirto waxaan u sheegaynaa tan waxay marqaati ka tahay ummadda Soomaaliyeed hurdadii inay ka kaceen dhalinyarada ayaa sidoo kale iyana waxa ay muujiyeen qaarkood dareenkooda waxaana ay sheegeen in dhibaatooyin adag ay kula soo kulmeen dalka Liibiya oo markaasi magafayaal ay ku haysteen aad baan u faraxsanahay shucuurteeda aad baan u faraxsanahay maanta wadankeyga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanayo dalkeyga Soomaaliya oo kalsooni meel kasta uu mar karo Liibiya runtii waxaan soo marnay gaamis iyo ma fahamtay waxa ii sheeg dhibaatooyin aad u fara badan marka insha Allah taala walaalahay Soomaaliya waxaan u sheegayaa dalkooda inay ku soo laabtaan wadanka ay joogtaan wadan ajnabi way wadankiina ku soo laabta wadankiina khayraad buu leeyahay Yurubta oo carreeysan oo badda idinku ugu dhamaanaysaan aan waan soo arkay maanta oo bad baan soo galay badina waa arteen oo Soomaalida ii sheeg iyadoo ay doomankii ay dhex taagan yihiin ay oo inqilaabkii wax ku dhacayba oo maraakibtii oo ii sheeg reer galbeedka ma fahamtay marka insha Allah taala islaamku meel kasta uu joogana Ilaahay guul ha siiyo ma fahamtay Liibiya ka timaada baan aad baan u faraxsanahay waxa weeyaan waalidkana iyo dadkanaga macnaheedu aan ka soo jeednay ee Soomaaliyeed waxaan ku jeedinaa macnaheedu inaan nimaanay oo soo maanta madaarka Muqdisho aan joogno waxa weeyaan insha Allah khayr bay noqonaysaa dhalinyarada dambe soo socotaan way soo socdaan macnaheedu Liibiya ku sugan wixii macnaheedu dawladdu ay faraha ku haysay macnaheedu xabsiyada ku jira waa laga soo saaraya insha Allah sida aan warka ka hayno anaga Liibiya ka nimaanay Maxamed Yaxya Jino Saab TV Muqdisho